munaasabada xil wareejinta wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa lagu qabtay dhismaha xarunta wasaaraddaas oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, xildhibaanada baarlamaanka, mas'uuliyiin madax dhaqameed iyo shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga iyo marti sharaf kale. agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Maxamed Cilmi Aadan Ilka Case ayaa ka waramay qaybaha kala duwan ee wasaaradda kalluumaysiga iyo ajandaha hawlgalka waxqabadka, isagoo agaasimuhu iftiimiyeen tallaabo horumar leh shaqaalaha kheyraadka badda ay ka gaadhay wasaaraddu. wasiirkii horena ku tilmaamay xilkas hawlkar ah oo dadaalo badan geliyay dhismaha wasaaradda kalluumaysiga. wasiirkii hore wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xilka wareejinayay Cabdulaahi Jaamac Ismaan Geljire ayaa ammaanay shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga sida ay ula shaqeeyeen, isagoo wasiirkii horena madasha kaga dhawaaqay in dhismaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda loogu magac daray Mujaahid Axmed Xuseen Warsame Maloosh oo ka mid ah halgamaagii naftooda u horay qarannimada Soomaaliland iyo madax bannaanideeda, una ku mutaystay in dhismaha bilicda san ee wasaaradda kalluumaysigu dhawaan ay dhisatay loogu magac daro. wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumaysiga xilka la wareegayay Mudane Cali Jaamac Faarax Bureed ayaa munaasabada mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga uga mahadnaqay sida xilkas kale ay ugu soo dhaweeyeen shaqada wasaaradda kalluumaysiga, isagoo sheegay inuu halka ka sii wadi doono shaqada wasaaradda kalluumaysiga si looga midho dhaliyo himilada waxqabadka wasaaraddaas. wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukusi oo ku hadlayay afka wasiirada madasha fadhiya ayaa ka waramay siyaasadda horumarinta iyo dardargelinta howlaha qaranka iyo siday waajib u tahay in la dhiso lana ballaariyo xarumaha wasaaradaha dawladda. wasaaradda kalluumaysiguna ay ku guuleysatay inay ka baxdo dhismihii hore ee dawladdii midowgii Soomaaliya ay samaysato dhismo qurux badan. waxaa kaloo madasha hadal ka soo jeediyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud, madaxa xafiiska xidhiidhka ka hortagga bulcadbadeedka, ururada iskaashiga kalluumaysiga dalka, madax dhaqameed oo dhammaantood ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay horumarinta kheyraadka badda iyo siday waajib u tahay in looga faa'iidaysto. gabagabadii munaasabada xil wareejinta wasaaradda kalluumaysiga ayaa mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddu waxay shahaado sharaf guddoonsiiyeen wasiirkii hore xilka wareejiyay, isagoo ku mutaystay bay yiraahdeen waxqabadka iyo shaqada uu